aroornimadii maanta oo ay taariikhdu tahay 21 bisha 6 2020 waxaa magaalada Klagenburg ee gobolka Niedersachsen ninkeedii uu ku dilay Leyla Saciid oo ahayd hooyo haysatay wiil 2 sano jir ah. Dilka ayaa ka dhacay xarun hoy u ahayd qaxootiga halkaas oo buuqa dagaalka lamaanayaasha ay ka wara heleen dad meesha la deganaa kadibna booliska u yeeray. Leyla waxaa la ii sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray toorey uu ku dhuftay ninkeeda. Booliska ayaa qabtay tuhmanaha waxaana ay baaris ku wadaan faldambiyeedka iyo sida uu dhacay. Mid ka mid ah ehelka wiilka la tuhmayo inuu falka geystay ayaa ii sheegay inuu la xiriiray ehelka isla markaana loo sheegay in tuhmanaha uu saaka markii uu falka dhacay kadib wacay walaashiis iyo 3 qof oo kale oo uu ku wargeliyay waxa dhacay. Wuxuu ii sheegay inuu sarqaansanaa balse uusan xaqiijin karin. Tuhmanaha wuxuu yimid sanadkii 2015 dalka Belgium ayuu deganaa kahor inta aanu Jarmalka soo galin sanadkii hore ee 2019. Waxaa la ii sheegay inuu haystay diidmo magangeliyadiisa qaxootinimo ah oo ay siisay dowladda Belgium. Marxuumadda iyo saygeeda ayaa nikaaxooda waxa uu bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho inkastoo sharciga Jarmalka aanay u diiwaan gashaneen inay xaas yihiin. Wiilka 2 sano jirka ah ee ay dhashay marxuumadda ayaa lagu wareejiyay hay'adda carruurta ee Jarmalka ee Jugendamtiga waxaana la rumaysan yahay inuu arkay dhacdada nafta lagu dhaafiyay hooyadiis taas oo ah uur ku taalla xanuun badan. Waxaa qadka taleefanka ee magaalada Qaahira aan kula hadlay Axmed Maxamed Cali Xasan oo ah aabaha wiilka oo hore ay u kala tageen marxuumadda wuxuuna ii sheegay inuu ka xun yahay sida ay wax u dhaceen arrintuna ay aad u saameysay. Inkastoo uu dhib dhacay dhimashana ay meesha taallo waxa uu ii sheegay in xaaladda wiilka yar ay iyaduna tahay mid aad looga walwalo. Wuxuu ka codsaday bulshada Soomaaliyeed ee Jarmalka degan iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta inay gacan ka geysato sidii wiilkiisa uu dib ula midoobi lahaa. Leyla ayaa ka mid ahayd Soomaali qaxooti ah oo magaalada Qaahira ee dalka Masar looga soo qaaday sanadkii hore kuwaas oo dibadejin ka helay dalka Jarmalka. Sida ay ii sheegtay Maamul Faadumo oo ka mid ahayd qaxootiga laga soo qaaday Masar oo aan taleefanka kula hadlay. Waxay ii sheegtay inay aad uga naxday warka geerida Leyla balse aanay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen helin. Wali ma cadda sababta dilka keentay iyo sida uu u dhacay. Waxaase la ii sheegay inuu jiray muran u dhaxeeyay oo hore loo dhexgalay.